ninkii dilay madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Anwar Saadaat ayaa markii maxkamadda la keenay waxa uu garsoorihii maxkamadda weydiiyey maxaad u dishay madaxweyne Saadaat. waxa uu ku jawaabay Almaani buu ahaa. garsoorihii waxa uu sii weydiiyey Almaani waa maxay, waxaana uu ku jawaabay ma garanayo. qoraagii reer Masar ee Najiib Maxfuud ayaa ninkii isku dayay inuu toorey ku dilo ee dhaawacay ayuu qaadigii maxkamadda weydiiyey maxaad qoraaga u midiyeysay. waxa uu ku jawaabay buuggiisa awlaad xaaratina dartii. waxa uu xaakimkii sii weydiiyey oo buugga ma akhriday. waxa uu ku jawaabay maya. waxaan xasuustaa dhowr sano ka hor buug uu qoray siyaasiga caanka ah ee Cabdiweli Gaas oo soo noqday ra'iisul wasaarihii Soomaaliya iyo hogaamiyihii Puntland in siyaasi ka soo jeeday isla deegaanada Puntland oo shir jaraa'id ka qabtay markii buugga la daabacay, isagoo ka cabanaya in buugga nuqul ka mida isaga lagu dhaliilay. markii la weydiiyey buugga ma akhrisay, waxa uu ku jawaabay ninkii shirka jaraa'id ka qabtay buugga maya ee waa la ii sheegay inaan ku jiro. dilaagii argagixisada ahaa ee dilay qoraagii reer Masar ee la oran jiray Faraj Fawda ayuu qaadigii maxkamadda markii la horgeeyey waxa uu weydiiyey maxaad u dishay Faraj. waxa uu ku jawaabay waayo gaal buu ahaa. waxa uu sii weydiiyey maxaad ku ogaatay inuu gaal ahaa. waxa uu yidhi kutubtiisa ayaan ka ogaaday. waxaa la sii weydiiyey oo waa kee kitaabka aad akhriday ee gaalnimadiisa aad ku ogaatay. waxaana uu bixiyey jawaab la yaab leh oo ahayd anigu kutubtiisa maba akhriyo. waxaa la sii weydiiyey maxaad ugala jeedaa hadalkaas. waxaana uu ku jawaabay anigu waxna ma akhriyo waxna ma qoro. qisooyinkaa is-shabaha balse xilliyo kala duwan dhacay waxay badankoodu ka dhaceen dalka Masar sannadihii 1981, 1992 iyo 1994. dhacdooyinkan oo uu wax ka qoray qoraaga Soomaaliyeed Ibraahim Hawd waxaa halkaa ka muuqata in ragga dembiyada culus ee dilalka ah geystay ficilada ay sameeyeen ay u geysay jaahilnimo isla markaana la adeegsaday. waxaa la yidhaahdaa jahligu waa cadow weliba mugdi ah, aqoontuna waa iftiin. waxaa kaloo la yidhaahdaa musiibada ay jaahilnimadu leedahay waa inuu jaahilku jaahil ka yahay jaahilnimadiisa. dulucda sheekadeennu waxay tahay waxaa jira dad badan oo aan ku xugminno waxaan xaqiiqo ahayn. dad badan ayaa ku maqan wax loo maleeyey oo loo dilay oo dib laga ogaaday xaqiiqda iyo farqiga u dhexeeya falkii dhacay. waxaana taasi looga gaashaaman karaa in qof kasta uu ka fikiro inta uusan tallaabada qaadin. waxaa intaasi dheer oo lagama maarmaan ah in qofku uu barto culumta diiniga iyo tan maadiga ah intaba. qofka intaa isku haystana ma sahlana in lagu qaldo waxyaaba aan jirin.